tahay dhegeysta daawade haddaba waan filayaa inaad isweydiinayso muxuu yahay barnaamijka diiradda lagu saarayo aroosyada kala duwan iyo sida loo soo bandhigo hase yeeshee markana bal reactionkeeni ugu horeeyay ee channelkan uu soo gudbiyo ayuu kusoo qaadanayaa banala daawo arooska ugu horeeya marka aynu eegno bal arooskani waa aroos Soomaali oo marka dad Soomaali ay dhigteen waxaana ay markaasi degan yihiin wadanka Mareykanka ama bariga Mareykanka isla markaana daawada dhageystay aynu wada daawano arooskii iyo qaabku u dhacay wadaragtaan qaabku ku bilowday balkan iyo jooji run ahaantii wiilka iyo gabadha ay ciyaarsiinayaan dadka kalena aad bay u faraxsan yihiin rag iyo dumarba aad bay markaa ugu soo wareegsan yihiin sidaan u jeedno kan mees dhahday dad badan oo markaasi arooska kasoo qayb galay runtiisa wara ayay markaasi galayeen isla markaana waxa ay markaasi qaadanayeen sawiro mobile ah sidaad u jeedeen balse maxay kaga duwan yihiin wadamada kale bal aynu eegno waa tahay waan filayaa dhanka commentiga inaad noogu soo gudbin doonto waxyaabaha kala duwan ee aad markaasi sidaad u aragto haddaba wadanka Soomaaliya oo aynu wada daawanaynay aroosyada qaabka ay u dhigtaan inkastoo ay kala duwan yihiin oo qaarkood ay yihiin kuwa loogu talagalay inay u dhacaan qaab ka duwan qaabkan hase yeeshee kan aynu soo qaadanay oo aynu diiradda ku saarnay isla markaana daawada dhageysta waad nala daawatay wixii commenti ah hoos noogu reeb aad baad mahadsan tahay waxaan markana galeynaa wadanka Malawi haddaba Malawi waxa aynu ka daawanaynaa oo aynu reactionkan aynu markaasi ku falanqeyn doonaa ama diiradda aynu ku saaraynaa waxyaabaha markaasi ay ku kala duwan yihiin arooskii hore waxaan aragnay malxiisaduhu waxay ahaayeen caruur aad u qurux badan oo loo soo labisay kanse waa ay ka duwan tahay oo malxiisadaha naftigooda ayaa ciyaaraya daawasho wacan wow runtii aad baan ula dhacay malxiisadaha iyo malxiisyada wiilasha ah dhammaantoodba waxay soo qaateen dhar ismaaj gareynaya ayaga ayaana ciyaarayay run ahaantii qaybaha kale ma ana soo qaadan karin waxaan rabnay inaanu dadka malxiisadaha aan diiradda ku saarno iyo weliba qaabka masraxiyadda ay markaa kusoo galaan bilowga arooska hase yeeshee waan filayaa wadanka Malawi oo markaasi ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen malxiisadahooda iyo malxiisayaashooda ee wiilasha ah in aad la dhacday sida balantayno aana commentiga hoos noogu reeb waxaanu barnaamijyada xiga kusoo qaadan doonaa run ahaantii in aynu kusoo bandhigno wadanka iyo weliba taariikh kamid ah taariikhihiisa iyo qaabka arooska hase yeeshee kan waa reactionkii ugu horeeyay waxaynu diiradda ku saaraynaa keliya masraxa iyo goobta ay dadku markaasi ka qayb qaadanayaan iyo qaabka ay malxiisadaha iyo u ciyaaraan amaba ay ku kala duwan yihiin wadamadu hase yeeshee daawada dhageystay aad baad u mahadsan tahay daawashadaada wanaagsan waan kaaga mahad celinaynaa fadlan ha naga ilaawin inaad share gareyso oo aad subscribe gareyso waxaan filayaa barnaamijku inuu yahay barnaamij xiiso leh waxaan jeclahay in aad nagula wada raaxaysataan daawada dhageystay waxaynu dib ugu soo laabanaynaa weli geeska Afrika weliba bariga Afrika ayaynu ku jirnaa wadanka Ethiopia oo iyagu ay degan yihiin qowmiyada aad u fara badan isla markaana ay runtii kamid yihiin Oromada ay kamid yihiin Xabashida iyo sidoo kale waxa kamid ah Hararida haddaba arooskan waxaan filayaa in aad la dhici doontid dad badan oo muslim oo degan ayaa iyaguna waxay qabsadaan aroosyo
aad u qurux badan arooskan bal aynu wada daawano waa hagaag waa filaya inaad isweydiinayso aawe arooskii iyo aroosadu maysan ahayn runtii aad bay u qurux badnaayeen qaab qurux badan ay kusoo galeen malxiiskii malxiisada balse ma ay ahayn hal qof oo keliya waxay ahaayeen ilaa 8 qof oo rag ah iyo 8 qof oo dumar ah marka 16kaas qofood oo laba iskula socdo ayaa albaabka hore lagu soo dhaweeyaa wadanka markaasi aan idhaahday Zimbabwe waxay u soo bandhigaan qaab kale oo wiilashuna mar ay fadhiisanayaan oo gabdhuhu ay ciyaarayaan ama gabdhuhu ay fadhiisanayaan oo marka wiilashu ay ciyaarayaan aan ka hor dhaco barnaamijkeen ama aan ka hor dhaco soo bandhigidooda waxay markaasi soo bandhigayaan arooska iyo aroosada naftigooda ayaa la ciyaaraya malxiisadaha iyo malxiisyada kuwaasoo iyaguna ah 4 iyo 4 daawasho aan baleen wada eegno Some gala want beef like hyena, some gala get beat on Serena, the gala get loud, the gala get wild, some gala take shots like tequila. Hypo, waan filayaa inaad aada runtii aad ula dhacdeen run ahaantii ciyaar aada u qurux badan ay soo bandhigeen bal haddana keliya ma aha qaabkaasoo keliya inay usoo bandhigaan wadanka markaasi aan idhaahday Zimbabwe waxay usoo bandhigaan qaab kale oo wiilashuna mar ay fadhiisanayaan oo gabdhuhu ay ciyaarayaan ama gabdhuhu ay fadhiisanayaan oo marka wiilashu ay ciyaarayaan waxaan aada u jeclaystay inaan kula wadaago oo reactionka aan kala markaasi aad kala qayb qaadatid qayb kale oo isla wadanka ah Zimbabwe oo markaasi aan wada daawan doono qaybtan marka gabdhaha kaliya ciyaaraya masraxa qaybta dambana waxaa fadhiyo wiilal waan filayaa anoo haddaan noqon lahaa gabdhahaas mid ka mid ah waxaan runtii noqon lahaa gabadhan aad ka maaragtay u ciyaaraysay ee aad nala daawanaysay runtii waa gabadh aad u ciyaarteeda loola dhacay qaybta commentiga markaad aqrisidna runtii ayada dadku farta ku wada fiiqaayeen markan waxaan gelaynaa wadanka Uganda waayo waxaan maraynaa inta marka laga reebo Zimbabwe xuduudaha Soomaaliya ka bilownay hadda waxaan kusoo noqonaynaa Ethiopia waan soo marnay hadda waxaan ku noqonaynaa Uganda marka wax kale ayay kaga duwan yihiin ayagu waxyaabaha ay kaga duwan yihiin waxaa ka mid ah ciyaarahoodu inkastoo ay fara badan yihiin ayaa qaab masraxiyeedka waxay usoo bandhigaan malxiisaduhu waxay la ciyaaraan kuwa gabadha arooska ah wiilka waxaa la fadhiisiyaa meel kursi ah malxiisadaha iyo gabadha ayaa ku hor ciyaaraya halkan markii ay kuwaas dhamaystaanna haddana wiilka ayaa maaragtay isaguna soo maaragtay bandhigi doona ciyaartiisa isagoo malxiisadihii wiilasha ahaa la ciyaaraya bal daawasho wacan Alex, excelente corte aí. qaybtii marka waxaa lasoo gaaray qaybtii wiilka gabadha hadda way ciyaartay gabadha u horeysay ayay ahayd wiilkuna sidaad ujeedeen kursi ayuu ku fadhiyay haddana gabadhii ayaa fadhiisatay bal aynu eegno isaga iyo weliba waxa uu ku heesiyo Don't think you're ready, don't think you're ready.
sidaad u jeedeen marka ugu horreysay wiilka waa lagu qasbayaa oo kale wiilasha saaxiibadiisa soo wadayaan mayo dhahayaa kadib haddana heesta waxay ku bilaabanaysaa waxaan rabaa inaan aabbaha kaa qaato waxaan rabaa inaan hooyada kaa qaato waanan ku jeclahay waaw cayaar aad u qurux badan ay ahayd runtii waan filayaa commenti badan inaad halka ay ku dhaafi doontaan anna waxaan isku dayaa inaan kasoo jawaabo